dhaqaayahalow ku soo dhawaada halkani waa Xusni News. Qodobada warkeena maantana waxaa ka mid ah madaxweynaha Turkiga oo ka hadlay go'aanka dawladda Maraykanka ay doonayso inay hub ugu daadgurayso Israa'iil. Cambaaraynta dusha ugu tuuray. Somaliland oo u dabaaldegtay sodonguuridii ka soo wareegtay tan iyo markii ay gooni isaga tagtay Soomaaliya inteeda kale. Madaxweyne Farmaajo oo ku andacooday in uusan eed ku lahayn doorashadii la qaban lahaa 8 Febraayo. Jariirada Foreign Policy ayuuna warkiisa ku qoray. Dagaalka ay Israa'iil ku wado cariga Falastiin oo maalinkii 9aad galay wadamada Islaamku maxay ka faleen. Dibadbaxyo aanan horay loo arag oo lagu taageeray Falastiin ayaa ka dhacay bariga dhexe. Markale kulan wanaagsan. Madaxweynaha dawladda Turkiga ayaa cambaariyay go'aanka dawladda Maraykanka ay ku doonayso inay hub ugu iibiso dawladda Israa'iil. Erdogan ayaana markale ku celiyay cambaaraynta go'aankii ay dawladda Maraykanka iyo dawlado kale ugu rareen safaaradahooda magaalada Qudusta barakeysan ee ayna ugu aqoonsadeen magaalo madaxda Israa'iil. Talaabadaas oo dalka Maraykanka iyo dalal kale ay qaadeen horaantii sanadkii 2017 ayuu Erdogan ku tilmaamay mid sii hurinaysa colaadda u dhaxaysa Falastiin iyo Israa'iil. Wuxuuna ku tilmaamay go'aankaas waa mid sii kordhinaya damaca Israa'iil ee ah inay sii qabsato cariga Falastiin. Madaxweyne Erdogan ayaa Israa'iil ku tilmaamay kuwa dhiig cab ah. Wuxuuna dalkaasi cambaarayn dusha ugu tuuray inay yihiin kuwa dhiig daadin moogi wax kale aanan lahayn. Madaxweyne Erdogan oo hadalkiisa sii wato ayaa wuxuu yiri waxaan aragnay saxiixa Biden ee uu hub ugu iibinayo Israa'iil, hubkaasi oo ah 150,000 oo hub ah. Erdogan ayaa wuxuu yiri Biden wuxuu taageerayaa daadashada dhiigga shacabka Falastiin, wuxuuna garab u yahay argagixisada Israa'iil. Waan cambaaraynaynaa go'aanka dhiig daadinta lagu taageeray ayuu yiri. Dib markay soo baxday cambaaraynta madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan, hadal markii loo eego go'aanadii hore isbedel uu ka muuqda ayuu kula hadlay Joe Biden warbaahinta dalkaasi. Joe Biden ayaa ku soo biiray baaqyada nabadda ee loo jeedinayo Israa'iil, wuxuuna yiri waxaan ku baaqaynaa in xaaladda la dejiyo, xabad joojinna la sameeyo. Wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa maalin kadib cambaaraynta Erdogan iyo baaqa Joe Biden oo isdaba socday waxay jawaab ka bixiyeen hadalkii madaxweyne Erdogan. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa cambaareeyay hadalka madaxweyne Erdogan waxaana wasaaradda ka soo jeestay hadal ay ugu yeertay mid aan u qalmin shacabka Israa'iil oo ka dhan ah Yahuudda. Haatan Somaliland ayaa u dabaaldegtay sodonguurada ka soo wareegtay gooni u goosadkeeda. Dabaaldegga 18 May ayaa loo qabtay si ka duwan sidii lagu ogaa oo loo qaban jiray 3 sano ee la soo dhaafay, waxaana sabab u ah abaaro iyo cudurka dilaaga ah ee corona. Sidaas oo ay tahay dabaaldegyo iyo heeso ayaa la qabtay. Madaxweyne Biixi ayaana bixiyay khudbad ku aadan 18 May oo aanay u dabaaldegin Soomaalida inteeda kale. Dadka reer Somaliland ee ku nool caasimadda dalka ee Muqdisho ayaa doonayay in ay dabaaldeg ku qabsadaan hotel ku yaala xeebta Lido Beach. Dadkan iyo saaxiibadii kala qaybgali lahaa ayaa ciidamadu ka reebeen shacabka aan yiraahdee calanka Somaliland oo ay siteen. Wax dhibaato ah oo kala gaaray shacabka iyo ciidamadana lama soo warinin. Haatan aan u galno qoraalka madaxweyne Farmaajo. Hadal uu madaxweyne Farmaajo ku qoray jariirad ka soo baxda dalka Maraykanka oo lagu magacaabo Foreign Policy ayaa la isla dhaxmarayaa baraha bulshada. Mucaaradka ayaa si weyn ugu soo horjeestay hadalka madaxweyne Farmaajo kuna tilmaamay mid been abuur ah. Aqoon-yahano ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaana si weyn u faaqiday hadalkan. Madaxweyne Farmaajo ayaa yiri tan iyo inta aan xilka qabtay waxaa iga go'nayd in aan qabto doorasho qof iyo cod ah si shacabka ay u doortaan cidda ay doonayaan. Madaxweyne Farmaajo ayaa wuxuu eedeyn u jeediyay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. Maamuladan ayaana si weyn isaga weeciyay eedda loo jeediyay. Madaxweyne Farmaajo ayaa aad u dhaliilay habka doorashada dadban. Wuxuuna yiri 17 Sebtembar waxaan aqbalay doorasho dadban anigoo aad ugu soo horjeeda. Madaxweynaha ayaa isweydiiyay sababta 2 milyan oo shacab ah ugu wakiil yihiin dhowr oday
dhowr oday beeleed wuxuuna intaas ku daray in aanan sidaasi lagu sii jiri karin. Si kastaba ha noqotee, shacabka Soomaaliyeed ayaa ku wareersan qofka eedda iska leh, maadaama uu midba kan kale eedda dusha ka saarayo. Dalka Urdunna waxay rabshado dhex mareen shacab dibadbaxyo lagu taageerayo Falastiin dhigayay iyo ciidamada ammaanka, iyada oo uusan jirin wax ficil ah oo ka soo baxaya wadamada Islaamka laguna garabsiinayo shacabka Falastiin ee Yuhuudda xasuuqayso. ayaa waxaa socda abaabul xooggan oo wada dowladda Turkiga oo ah tan ugu firfircoon, waxaana isha si weyn looga hayaa ficilada ka soo bixi doona. dalalka Islaamka gaar ahaan Carabta ayaan xitaa cambaarayn jeedinaynin marka laga reebo baaqyo ku aadan nabadda, balse dalka Turkiga ayaanan af waxba kula harin adin marka laga reebo.